أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالك على دار سيادو إذن له مركلة بانو وناكسن صباح وناكسن قلب وناكسن ملك السؤال نقدر سنة دالك إيو ديبدي سبا وبرامج كيني دالك قد بوليسكي سكا قيب قل أوردا ما أنت وحينو كوئينا إن شاء الله بكريم لما قضبو كليه تنكواد qaybsashadii farxadda ciidda oo aynu weli ku guda jirno aanu leenahay meelaad joogtaanba ku ciida farxad wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waxaynu ka baryaynaa kuwii inaga aqbalo inuu ka dhigo dhibta muslimiinta haysatana ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ka baryaynaa inuu naga dulqaado ay ugu horreyso masjidul aqsa waxa ka socda intaa markaan dhinacaas kaga gudbo khiyaaray waxaan kaloo ku soo qaadanaynaa khudbaddii maalintii xorriyadda 1960gii uu ka jeediyey goobtii xorriyadda ee calansaarka madaxweynaheenni sharafta lahaa ee ugu horreeyey aadan cabdulla cusmaan iyo waxa ay message-ka ugu horreeyay uu xambaarsanaa oo aynu ka dhaxli karno iyo gobonnimadeenna iyo sharafteenna qaabkaan ugu soo halgannay iyo muuqaalka iyo wejigaynu lahayn balse intaynaan taa u gelin sidii dhaqankaba inoo ahayd barnaamijkeennuna uu noqdo mid xalaal ku socda waxa ugu horreeya eebba inaynu isxusuusinno subxaanahu wa tacaalaa maadaama xuska rabbi la-aantiis ay tahay xadgudub aynu samaynayno صدق الله صدق الله العظيم اخياري كسو دوالا عيد وناكسن marka ugu horeysa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco aayadaha qur-aanka ah ee kariimka ah ajir iyo xasanaadna uu ka siiyo ciddii inoo soo duubtay inoo soo gaadhsiisay ikhyaarey saynu barnaamijka u sheegnay waxa weeyaan waa tahniyadii ciidda oo aynu ku gudanayno isu ducayn iyo ilaah aynu uga abaal hayno inuu ina ku gaarsiiyey cimri isu tahniyadayn cafis dalab iyo isu ducayn bay ku saabsanta waxaan halkan uga ducaynaynaa walaalaheen Palestine oo dhibaato aada u weyn wajahaya masjidul aqsa oo dhibaato weyn wajahaya ilaahay waxaan ka baryaynaa in muslimiintu meel ay joogaan ba ilaahay dhibta ka qaado ugu horeysa masjidul aqsa ilaahay waxaan ka baryaynaa muslimiinta soo soontay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu siiyo fadligeeda aynu ka mid nahay kunyaasha xoriya alla nagu daro ikhyaar intaas ayaan taa uga baxaynaa waxaan u gelaynaa barnaamijka qeybtiisa kale oo ah khudbaddii uu jeediyey madaxweynaheenii sharafta lahaa waa aadan cabdulla cusmaane ayaynu eegaynaa oo ku eegaynaa barnaamijka haddii ilaahay idmo aadan cabdulla cusmaan ayaa khudbaddiisa iyada ahi waxay ahayd bilxaqiiqa khudbad aad iyo aad iyo aad u taabanaysay meelo badan
qof kasta oo Soomaali ah dhageystaana waxay u sameynaysaa macne gaar ah bal aynu dhageysano khiyaari waa maalintii farxadda waa maalin la isu soo baxay adigoo daqiiqadatan dhalanaysa waxaad leedahay weji waxaad leedahay magac ilaahay ha ku nabadgeliyo amiin ilaahay ha ku magan geliyo amiin cimri dheerna ilaahay ha ku siiyo wadaniyiinta Soomaali anigoo idin ogeysiinhaya idinkuna ogeysiinhaya qalbi farax badan ka buuxa dhalashada jamhuuriyadda Soomaali iga aqbala inaan wada jir isku faanino kulligeen kala sooc annaga oon lahayn oo dagaalka aynu soo wada gallay xorriyada maanta noo dhalatay maanta waxaa dhalanaysa taariikh cusub oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay taariikhdaas dagaal baynu ka soo maray sidii aynu wada jir iyo sharaf aynu ugu noolaano taariikhda ummadayada Soomaalida oo dhalinta yar leh waxaa ka buuxa saad ka warqabtiin dhib badan aynu soo maray yaa laga sheekayn karaya sugi tiro badan oo aan sugnay baa laga sheekayn karaya rajooyin badan oo wax badan aan waqtiga kan sugnay baa laga sheekayn karaya intaasoo dhan ayagoo wada jira waxay ku dhigan yihiin garuubtayada ayadoo shay keliya ay yihiin maanta waxaynu nahay Soomaali baan nahay maanta waxay nahay xor talada iyada gacantana ay noogu jirtaa waqtiga kan aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor dawlad oo adinka gacantiina ku jirtaad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad iyaad leedihiin waa gallad ilaahay waa inaynu adkaynaa oo aynu dhowrnaa adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badanu ay nagala joogto maraka ka ahaado rabidayada aad aynu u doonayno aan u rabno inaynu jecel nahay shucuubka adduunka inaan wanaag xiriir wanaagsan inaynu la lahaano dhawaq noogu horreeya sidii carruur dhalatay waxaan maqashiinaynaa caalamka nabadgelyo ha heleen oo ilaahay ha siiyo intii lilaahi iyo nabad doonaysa nabad iyo wanaag kulli ah middaasu waa mid duco ah oo lilaahi naga Soomaaliyey meel alla meelaad joogtiinba ila rayreeya oo ila farxa kuna tashada inaad xooggiinna iyo tabartiinnoon kala harsanayn inaad ugu hildhisiin oo aad ku difaacdiin qiimada demokrasiyada iyo ixtiraamka ay leedahay nabad iyo xaq ku dhisan horu socodka iyaga ee siyaasadda dibadda ah ha ahaato mid aan khaalifsanayn midda iyada gudaha
aynu ixtiraamno oon xishmayno aynu difaacno hay-ooyinkanaga demokrasiyada ku dhisan aynu ku cabirno xiriirka iyaga ummadaha dibadda naga jira oo caalimka ah middaas aynu gudahanaga ugu dhaqmayno adduunkana dhegaysanaya iminka kan faraxa iyo rayraynta aynu ku jirro aynu marayno waxaynu leenahay oo aan qalbi wanaagsan ku leenahay waa aynu ka dhidhiyaynaa oo aynu waa ka masiiraynaa annagoo ku hadlayna magaca ummadda qaarkeed oo xanuunsanaysa dulli xanuunkii uu hayo xorriyada aynu haysanno aan helnay yaan uga masayraynaa dadka kale aynu u jeedinno wakhtiga kan aan marayno daymo iyo fikro aynu u jeedinno milyoonaadka afrikaanka oo ku saxariiraya dulliga ajnabiga dulliga isticmaariga xaqdarradu ay haysato isgarasho waagana ay haysato waxaan u cusboonaynaynaa caalimka oo na dhegaysanaya habarwacid aynu u habarwacayno nabad iyo xaq inay helaan walaalahanaga isticmaalka ku jira ilaa wakhtiga kan oo la rafaadsanayo waa in la ogaadaa inay xaq tahay oo ay wanaag tahay oo adduunka dhan u ogaado annagu haddaan Soomaali nahay haddaanba ka mid nahay Afrika aan barbar ka nahay waa aynu ka xanuunsanaynaa xanuun geeri ahaana naga haya waxa caalamka ka dhacaya oo lagu haya ummadda walaalahana Soomaaliyay adinka magaciina yaan tahniyaad iyo shukri u jeedinaya ummadaha wanaagsan oo martida ah oo nagu soo biiray inay maanta faraxa nala jiraan oo faraxaas ay wax nagala qaybsadaan ilaahay ha najeeyo jamhuuriyadda Soomaaliya aad iyo aad baan ugaga mahadnaqaynaa kaasi wuxuu ahaa aadan cabdulla cusmaan oo ahaa madaxweynaheena qaaliga ahaa ee aad garanaysaan ee dalkeenna xorriyadda markaynu qaadanay majaraha u qabtay bilxaqiiqa khudbaddiisu waxaad moodaa inay tahay khudbad baahi weyn loo qabo oo aad moodid inay fiicnayd inaan aragno cid hadda jeedinaysa qalbi ka hadalka faan la-aanta uturshiiyaha ogaalka dadku waxay yihiin ilaa intaasoo jeer yuu isticmaalay ereyga wadajir aan ku faano wadajir aan samayno wadajir yacni marnaba anaa yeelaya iyo anaa samaynaya iyo anaa ahaynaya iyo anaa ahaa iyo ereygaa ma isticmaalayo mahmaha baa jirta Soomaaliya oo odhanaysa socodaadan lahayn waa 3 saamood ka badan ma socon kadib adoo ilaaway baad arkaysaa adoo qaab kale u dhaqmaya sidii kaa dhabta ahayd adoo u dhaqmaya baad sarkaysaa marka in aadan cabdulla cusmaan hadalladaas bilow ilaa uu khudbadiisa ku dhameeyo isticmaalayo aanay waxba kaga jirin hunguri ah inuu isagu wax sameeyey
ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay wada xafladeeyaan oo ku xafladeeyaan guushay gaadeen waa sida looga baahnaa hogaamiye lilaahi ah oo dalkiisa iyo dadkiisa oo wadani ah wadani ma ahan qof dadkiisa cadow ah shisheeye daacad u ah wadani ma ahan qof dadkiisa laynaya oo kala qaybinaya aadan cabdulla cusmaan wuxuu ka ilaalinayay dadka milyaniska ah oo halkaa safar ooyaya oo soo saftay dhagahoodu inay maqlaan wax ka duwan waxa dhacaya qof walba inuu leeyahay oo aan ahayn hala maqashiiye qaab uu aadan cabdulla cusmaan qalbi iyo maskax iyo jir iyo dhiigba u qabay ahayd taa marka iyada ahi aadan cabdulla cusmaan wuxuu inoo ahaa ku dayasho ayuu inoo mudnaa aadan cabdulla cusmaanna arrintaani waxay ahayd arrin uu ku soo ababay oo SYL iyo qaabkii u shaqaynaysay iyo halgamadii socday oo dhan yaa saa asluubkaa iyo aragtidaas iyo qiiradaas iyo dadnimadaas iyo jacaylkaa ku dhisnaa ereygaan hadda maanta laga cararayo wadani la yidhaahdo waa erey qurux badan weeye laakiin waa erey gurigiis ba'ay sidii loo burburinayey oo derbi walba loogu dhufanayey oo qodxa looguse buu kurtumo isagoo ah ku mudaya sababtaa qof caytamaya oo qabaa'ilkii isku dirayo oo aan laga baxsanayn oo laalusqaata ah oo imaan laawaya baa isu yaqaan wadani wadani waxaa isu yaqaana qof cadowgii Soomaaliyeed u shaqaynayo Soomaalida u dhiibay wadani waxaa isu yaqaana qof walba oo dhibaato Soomaaliyeed ka shaqaynaya qof faanaya oo kaligiis aaminsan inuu wax yahay ummadda kale waxba igaba horreynta ku haya wadaniyadaa iyada ahi ma ahayn mid shaqaysana ma ahan mid wax xilli wadato weeye midda maanta jirta wadaniyadda shaqaysaa waa midii dhistay dal qable dhistay weeye hadallada aadan cabdulla cusmaan aan ka qaatay waxaa ka mid ahayd oo cajiibka ahaa oo aad moodin yani hadda ay hor taagan yihiin doodii xorriyadda uu ku dooday oo qalbigiisa uga jirtay oo Soomaaliba ka durugsaneed Afrika maraysay wuxuu isticmaalay erey xanuun bay igu haysay nagu haysaa walaalaha iyaga weli waxa xil kale lagu samaynayo aan xuruubin Soomaaliya dhexdeeda iska daahdi Soomaaliya dhexdeeda iska badaaba lagama hadli karaba marka khiyaarey wanaagga iyo xumuhu waa kala cad yihiin aadan cabdulla cusmaan waanadiisii dhagax dhigiisii iyo SYL oo dhan waxaa halkudhig u ahaa hadalkaana halkudhigu noqday aadanna cad bay hadaladiisa uga muuqatay waxaa halkudhig u ahaa institutionska iyo sharciga aynu leenahay waa inaan ilaalinaa waa wax cajiib ah yacni wax kasta waxaa uga weynaa aadan hadalladiisa ama dibad ha kaga xisaabtamayo
oo shisheeyaha ula xisaabtamayo afrikaanka sokey u yaqaana shisheeyaha la ama ha la xisaabtamahayo afrikada dhexdeeda aadan waxaa ka muuqatay qof dalalka uu la hadlahayo xusmad iyo masalaad inuu wax cid mathalo ku hadlaya qof is ururinaya oo hadalkiisu inuusan xanaf iyo dhib u keenin dalka uu masalayo ogaalkeed ku hadlayo buu ahaa erayada uu isticmaalayadoo dhanna waxay ahaayeen kuwo macno ku fadhiya oo xiriir iyo wanaag tilmaamaya message ay u gudbinaya in dadka dowladda dhalatay ee Soomaaliya xiriirka iyo wanaagga adduunka la rabto inay kula dhaqanto yo dhagax dhigahay cid macaayin ma aflagaadayn cid badan kuwo badan buu ka ciil qabay laakiin qaabka uu u dhaqmayay waa qaabkii diblomasigu ay ahayd bisaylka 1960gii ka muuqday iyo qaabka u dhaqmayeyna waa qaabkaynu maanta u dhaqmi lahayn oo baahida ugu weynaynu u qabnay oo waa maxay dhammaan caalamka inaynu gacan saar la yeelano oo si wanaagsan ula dhaqanno garaysigeennuna dhexdeennana sharci yahay caalamkana aan kula dhaqmayno sharci iyo nidaam marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa role model buu inoo yahay macaa madaxweyne farmaajo marar badan baan ka maqlay inuu role model ka dhiganayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo role model buu yiri waan ka dhiganayaa wuu yiri waa dhegeysti isagoo leh masawirkana derbiga meesha fadhiisto ayuu surtay waa macquul in laba farmaajo isdiidan midna uu sidaas rabo midna uu kan ficilada kala samaynaya yahay laakiin mar walbaba waxa fiican oo la raaco khasaare lagama mudanayo dictator ma ahayn mana rabin inuu dictator noqdo nacayb Soomaaliyeed ma qabin oo wuxuu ahaa ninka eed la'aan darteed masaajidkiisana ku soo tukanahayay beertiisana dhex degay markuu ka tegay meesha oo cid walba wax isaga la yeela maaha aan Soomaali wax yeelaynin marka runtii waxa weeyaan asad buu ahaa Soomaaliyeed waana kula talinayaa madaxweynaha xilkiisu dhammaaday inuu ka dhabeeyo kudayashada uu sheegay waa runtii waa wax fiican oo lagu dayan karee inuu ku daydo waa kula talin lahaa maxaa yeelay ciddii wanaagsan in lagu daydo waa wax fiican weeye ciddii wanaagsan oo lagu daydaa wax fiican iyo wanaag waxaan ahayn lagama dhaxlayo hopefully waxaan rajaynayaa
ikhyaarey barnaamijkeennii aynu ku eegaynay khudbaddii madaxweynaheena qaaliga ah isugu ducaynaynay iskugu tahniyadaynaynay ciidda sharafta leh oynu ku guda jirno intaas ayaynu maanta ku soo roray dhammaaniga walaalka aan daarsadoodanle wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu